kaana waxay aad ula yaabanayd galoofiska gacanteeda loo gelinayo. Kuro markaas intuu nadiifiyey ayuu wax ku akhrinaya isagoo ku talaya dun guduudan. Markaa kadibna gacanteeda ayuu gashay isagoo weli wax ku sii akhrinayo. Markaasi Toshihiro ayaa Kaana wuxuu ka wareystireen, iyadana waxay u sheegtay inuu tagay. Su'aalo kale ayuu sii weydiiyey, iyadana way ka sii jeesatay si uusan uga wareysan. Markaasi Rin waxay indhaheeda ka qaadi weysay galoofiska markaasi gacanteeda si fiican u la-eg, kaasoo markaasi qarinaya calaamadeedii gebi ahaanba, iyadoo markaasi u gaaro ilaa xusulkeeda. Kalarka cagaaran ee bahalka waxaabad moodaa inuu dhalaalayo markii gacanteeda la gashay, iyadoo uu ka ifayo iftiin cad iyo kalaro qarsoon. Kuro wuxuu uga digay inaysan siibin wax walboo dhaca, iyadana waxay tiri sidee ku siibi kartaa sababta uu ku dhuunjiyey gacanteeda. Kuro kadibna wuu sii jeestay. Toshihiro ayaa aaday, wuxuuna markaasi wax weydiistay asaga, isla markiina Kuro wuu diiday. Dhinacooda ayay soo eegtay iyadoo rabtay inay ogaato waxay ka sheekaysanayaan, laakiin xagan ka helayaa meelaan ku nasto xilligan dambe ayuu ku qayliyey. Kuro ayaa u jawaabay, aniga labadiina waa ni caawiyey, dukaankayga waa soo geli kartaan, laakiin gurigayga ma soo gelaysid iyadoo ay kula socoto. Kaana aad ayay u naxday, weligeed sidaan oo kale loogama fogaan, isma aysan dhehaynin waxaa lagula dhaqmi doonaa qof shisheeyaayoo kale. Hase ahaatee ma ogin dembiga ay geysatay, cadaabta ayay gashay. Adiga waxaa tahay saaxiibkay, laakiin saaxiibtinimadana ma dhaafayso waddo khaasa. Anigana gurigayga ma soo gelinayo oo nafsadeeda khatar ma gelinayo qof dembi galayo cadaab galay dartiis. Kaana meeshuu iskaga soo baxday, iyadoo markaasi dareemaysa ilin indhaheeda soo buuxinayo. Waxay dareentay bahdil, waxayna jeclaan lahayd khaladaadkeeda hore haddaysa samayn lahayn, laakiin hadda way daahday. Toshihiro ayaa soo dabagalay, wuxuuna u sheegay inay sida ugu dhaqsiyaha badan keynta ka tagaan, sababtaa sida cad meeshani nabad iyaka uma ahan. Kaana madaxa ayay ruuxday weyna dabagashay iyagoo ay lugeynayaan dhinaca webiga. Markaasi Toshihiro wuxuu sheegay inay tuulo yar u dhowdahay oo ay ku nasan karaan. Kaana hadalkiisa ma aysan maqlaynin, sababtaa waxay xasuusanaysay khaladaadkeedii hore. Korkooda geed korkiisa waxaa saarnaareen oo maantoo dhan daawanayay. Wuxuu dareemay xumaan maadaama uu Kuro u diiday meelay ku nastaan, laakiin wuu fahmi karaa meesha uu ka soo socdo Kuro, sababtoo ah cidna ma rabto inay gasho cadaabta iyagoo ay caawinayaan dambiile. Wuxuu ku booday geed kale, asaga wuxuu ku tababarnaa inuu sharkan la'aan dadka dabageli karo isagoo geedaha fuulaya. Wuxuu maqlay Toshihiro u sheegaya Kaana inay u socdaan tuulo kale, waana arrin saxa sababtoo ah meesha ay joogeen waxay hooy u ahayd dadka dambiilayaasha. Markaasi wuxuu eegay galoofka gacanteeda ku jira. Nasiib darro wuxuu ku qasban yahay galoofiskaasi inuu ka bixiyo. Si uu ugu guulaysto mishinkiisa, waa inuu ku kalifaa yookayga inay soo weeraraan. Waa waddada keliya u bannaan isaga si uu u helo waxa uu rabo. Ren wuxuu arkay Kaana oo socota, taasoo madaxeeda hoos u jeedo. Asaga wuu arkayaa inay markaasi ooyeyso, inkastuusan wejigeeda arkaynin, socodkeeda ayuu ka dareemayaa. Seeftiisa ayuu si xoog u qabsaday. Waxaa run ahayd inuu u baahnaa dhiiga yookayga si uu hawshiisa u gaaro, laakiin ma uu rabo Kaana inay dhibaato soo gaaraan. Wuu ilaalin doonaa wax walba ha dhacaane. Markay subaxii ahayd ayay waxay gaareen tuuladii u socdeen. Markaasi Toshihiro wuxuu u sheegay Kaana inay dhuudhuumaalaysato, sababtoo ah dadka tuulada waxaa laga yaabaa inay si xun u galaan gabar miskiin oo keligeeda, isna wuxuu baahaa digsiga cunto lagu kariyo. Kaana waxay weydiisay haddii uu yaqaano qof markaasi ku caawiya meelay ku nastaan, sababtoo ah wuxuu u sheegay Toshihiro Kuro inuu markaasi meelay ku nastaan ay heli doonaan, laakiin ma uusan u jawaabin. Kaanana way ka daysay su'aalihii. Kaana waxay dhex jiifatay markaasi cawska jilicsan, iyadoo markaasi qoraxda ay wejiga ka hayso oo ay maqlayso dabaysha. Markaasina waxaa qabatay hurdo, sababtoo ah habeen dheer ayay lugeynaysay. Meel fog ayay ka maqlaysay shimbiro duulaya, markaasna waxay bilowday inay si tartiib u seexato. Kadibna waxay dareentay taabasho naxariis leh, waxayna ursatay caraf aad u wanaagsan. Wayna mar walba ubax madaxaaga gashataa, sababtoo aad ayaad uga qurxoon tahay. Kaana way soo kacday, waxayna aragtay Michi oo iyada markaasi u dhoola cadeynayso. Kaana markaasi ilin ayaa ka fakatay, waxayna laabta gelisay Michi. Michi way yaabaneed, waxayna ku tiri maxaad la ooyeysaa. Kaana uma isa jawaabin oo oohintii ayay sii wadatay. Mar dambe ayay jawaabtay, waxayna ku tiri waxaan u malaynayay inaan adiga ku waayay. weligay kaama tegi doono. Kaana gadaal ayay u booday iyadoo ka naxday codka weyn.
kaana way qaylisay markii aragtay ninkii wejiga dibiga lahaa. adiga ayaad iraawaysaa. kaana aad ayay u sii qaylisay markay aragtay dabka agagaarkeeda ah. kadibna waxay maqashay magaceeda loo yeerayo. markii ay soo jeesatayna waxay aragtay codkii hooyadeeda u yeerayo. hooyadeed ayaa markaasi la hadashay, waa inaadan ilaawin, waa inaad isaga heshaa, kadibna waa inaad dishaa. markaasi way suuxday, dhiig ayaana wuxuu bilaabay inuu ka yimaado. kaana waxay rabtay inay aado, laakiin waxaa ka hor istaagay bahalka. galaafiska aad qabtid anigaygama kaa badbaadinayo. daqiiqado gudahood waxay aragtay kaana ayadoo markaasi ag taagan tahay webiga geeskiisa. markaasina dayaxa wuxuu ifinayay biyaha. waxay noqon lahayd habeen degan, laakiin waxaa jiray codka haweenay dhahaysa ee caawiya. kaana isla markiiba afkeeda ayay gacmaheeda saartay, indhaheedana way kabsatay. waxay markaasi maqashay nin qosolkiisa. markaasna waxay ku fakaraysay kaana waxaa dhaantay inay haweeneydaas ahaato intay laftirkeeda ahaan lahayd. wax ayaa gadaasheeda ka dhaqaaqay. markay soo jeesatayna waxay aragtay iyadoo wejiga weji u hortaagan Gooso. boqorka ayaa rabo inuu kula kulmo isla daqiiqadan. codkaas ayaa isla markiiba soo kiciyey. kaana markaas way gariiraysay, irkana wuu sii madoobaanayay, xidigaha ayaana soo muuqanayay. kadibna waxay maqashay codka ay taqaanay oo ah digsiyaasha isku garaacmayay. waa ku kanaa, maantoo dhan ayaan ku raadinayay, ayuu dhahay Toshihiro. ugu dambeyn kaana way is eegtay, waxayna aragtay inay soo surtin geedkii hoos seexatay ee ay joogto beeraha bariiska oo ayna ku dhex jirto dhooqo. markaasna waxay weydiisay maxaa meeshaan ka samaynayaa. waxay damacday inay istaagto, waxayna aragtay xaaladda ay dharkeeda ku sugan yihiin. saaxiib ayaan la hadlayay si aan u weydiisano meelaan ku nasanno. ayada way naga ogolaatay. darta ayaa u soo laabtay, laakiin meesha waa ka maqneed. waxaan ku riyooday Gooso, ayay dhahday. Toshihiro markaas wuu u soo dhawaaday. magacaas hadda ha sheegin. saaxiibadda way noo ogolaatay inaan gurigeeda ku nasanno, waa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan ugu tagnaa. dhaqso istaag. kaana markaas waxay u dabagashay guri ka soocan guryaha kale ee tuulada. kaana aad ayay u naxsaneed markay soo xasuusata bariyadeeda. waxayna eegtay galoofiska ay qabtay. markaasi waxaa la rabay inuu ka ilaaliyo yookayga, laakiin kama ilaalin karo galoofiskani bahalada markaasi ilaalinaya albaabka cadaabta. iska barayaashii ayuu dhahay. kaana isla markiiba way foorarsatay. islaanta cajuusada markay aragtay, islaantiina waxay tiri soo gala. dhoola-cadeynteedu waxay ahayd mid qalbiga dejinaysa. kaanana markaasi way degtay. markaasi waxay dareentay nabad oo ay ka badbaadi karto Gooso. waxay aragtay guriga degnaantiisa, waxaana u soo hortay cashada. markaasna waxay dareentay gaajo aad u badan. yooshi markaasi waxay siisay cunto kulul. way cuntaynayeen. Toshihirona wuxuu uga sheekeynayay siday ugu lumeen keenta oo markaasi ugu faraxsan yihiin inay meelay ku nastaan ay siisay. waxay islaantan uga sheekaysay sida ay faamilkeeda ku weysay ayagoo ay mar u socdaan kalluumaysi. kaana madaxoona ayay iska ruuxaysay iyadoo aan rabin inay sheekada dhex gasho. ugu dambeyn waxaa la gaaray xilligii la seexan lahaa. laga yaabaa inay maalinkii dhan hurday kaana, laakiin la yaab waxa ahaa inay hurdo haysay weli. waxay istiri waxaa sabab u ahaa istresska ay ka qaaday riyooyinkeeda xuxumaa. markaasi way ka soo tagtay, waxayna aaday qol kale si ay markaasi iskaga jiifato. indhaha ayay isku qabsatay, waxayna dareentay inay sii seexanayso, laakiin markii ay maqashay cod isla markiiba indhaheeda way kala furtay. Toshihiro weli islaantii ayuu la hadlayay. markaasna wuxuu isku dayay inuu hoos u hadlo, laakiin kaana waxay maqashay magaceedii. waxaan sameeyey sidaad iga codsatay, ayay tiri islaantii. hadda waxaa laga yaabaa inay hurdo. gabadha miskiinta hurdo ayay u baahan tahay. waa xasuusataa waxaan ka wada hadalnay, caawinaadaada ayaan u baahanahay. waxaa tahay qofka keliyo aniga i caawin kara, ayuu dhahay. miyay kuu sheegtay waxa ay samaysay oo cadaabta u diray? markaas ayuu hadlay, maya, waxaan isleeyahay qof ay dishay. waa dembiga ugu weyn kaasoo qof walba gelin kara cadaabta. laakiin adiga midaas ma ogid. waxaanadi weydiisatay inaan ku caawiyo. waad ogtahay arrintani way dhibaatayn kartaa, soo ma ahan? maadaamaad adiga ka dhalatay famili sixirka yaqaana. way aamuseen. kaanana waxay isweydiisay in islaantu si tartiiba u hadlayso heer ay maqli weysay iyadu. ma jirtaa waddo aan uga qaadan karo waxaan rabo iyadoo aana markaas haysa dhiman? ma jirto, waad ogtahay anigana kuuma caawinaya gabar inaad dishid si aad waxaa rabtay uga qaadatid. kaana waxay maqashay islaanta weyn oo markaasi dhaqaaqayso. waxaan dareemayaa wax wanaagsan oo gabadha ka imanayo. gurigayga intii ku jirtana kuuma ogolaanayo inaad iyada dhibaataysid.
kaana bustaha ayay si fiican u hubsatay. Toshihiro markii caawinaad u baahneyd wuu u yimid oo wuu caawiyey, markaasina wax walba wuu tuso saaxiib ayuu ahaa. waxaasoo dhan majaliin ayuu ahaa. Ma waxaa laga yaabaa inuu u dan lahaa inuu dhibaateeyo. kaana markaasi wadnaha ayaa fadhiistay. markii hore Rin, haddana Toshihiro. ma waxaa laga yaabaa inaysan qofna aaminin. waxay rabtay inay kacdo oo Toshihiro weydiiso, laakiin markaasi hurdadii ayaa ka tiro badatay. waxayna markii sii seexanaysa ku fakartay waxa ay islaanta ugu dartay cuntadeedii. Rin markaasi wuxuu ku dhuumanayay geeda gadaashiisa. wuu soo dabagalay kaana iyo Toshihiro, uuna daawanay markay guriga galayeen. ma uusan jeclaysan waxa uu samayn doono, laakiin wuxuu aad ugu baahnaa dhiiga Yokai si uu walaashiisa u badbaadiyo. haddii uu taxadaro wuu caawin doonaa iyada. wuxuu u soo dhawaaday guriga, daaqadda ayuuna ka fiiriyey. wuxuuna arkay kaana uu hurdo dheer jiifto. kadibna wuxuu arkay Toshihiro oo guriga soo galay, si tartiibana kaana dhinaceeda ugu dhaqaaqay. wuxuu u qabay Toshihiro inuu u yimid kaana inuu hubiyey inay fiican tahay, laakiin wuxuu arkay isagoo foorarsanaya oo markaasi taabanaya galoofiskeeda. markaasna wuxuu gartay inuu isku dayay inuu ka siibo. intuusa isjoojin ka horba daaqadda ayuu soo koray, qolkii ayuuna soo galay. maxaad samaynaysaa? Toshihiro naxdin dartiga gadaal ayuu u baxay, wuuna dhici gaaray. adiga waaba iska kaadirnee. waxaad u socotay inaad galoofiskeeda ka siibtid, anigana waxaan u qabay inaad rabtid inaad badbaadisid. waxaad rabtay adna inaad xadid soo maaha, ayuu dhahay Toshihiro. maya, aniga midaas ma rabin, laakiin Rin hoos ayuu eegay. marka xagan maxaad u joogtaa? ha ii sheegin inaad iyada ka walwalaysay. adigana ha isku dayin inaad ii sheegtid inaad rabtid inaad badbaadisid, sababtaa waxaa rabtay inaad ka siibtid waxa kaliyo iyada badbaadinaya. wuxuuna ahaa adiga fikradaada in loo sameeyo galoofiskaaga. ee hadda maxaa isbedelay? markani Toshihiro ayaa hoos eegay. aniga ma raba inay wax dhibaataa soo gaaraan, laakiin dhibaato ayaa haysto. ma raba nolosheeda inta ka dhiman inaan digsi ahaado. aniga waxaabadii la ekeed kiliga shaaha lagu kariyo, ayuu dhahay Rin. kaana way huruday ayadoo markaasi aan ka warqabin waxa gaarkeeda ka dhacayo. Rin wuu la yaabanaa, sababtoo qayladani waxaa la rabay inay ku kacdo. maxaa ka galay kaana arrinta ah inaa adiga tahay kiliga shaaha? dhiigeeda ayaan rabaa, ayuu dhahay Toshihiro. Rin hoos ayuu eegay si uu eego inay kaana soo kacday. markaasi wuxuu dhahay halka qof ay badbaadin kara waa iyada. sidee ayay kuu badbaadin kartaa? Rin wuxuu rabay inuu ogaado. iyada waa gabar yar un. Toshihiro markaasi hoos ayuu eegay. ayada waa gabadhan awooga u ahay. waxuuna hadday iyada soo gaaraan awooddeeda ayaan qaadan karaa, dib ayaana xoogayga u soo ceshanayaa. aniga mar kale ayaan bilaadan noqonayaa, xoog ayaan yeelanayaa, wiilkayga ayaana dili doonaa kaasoo dilaan noqday. boqorka Akihito, miyaad aabihiis tahay? ayuu dhahay Rin isagoo aad u yaaban. ayuu gadaal u baxay, laakiin aabihiis wuu dhintaybe. aniga waa haykanaa, inkastaanu wax sharafa ku qaadanin inaa aabihiis ahay. waxaan u baahanahay dib inaa u soo ceshto boqortooyadeydii. kaana ayuu hoos u eegay. waxaan u baahanahay inaa iyada huro. haddii ay waddo kala jirto, waddadaasi waan qaadi doonaa. Rin markaasi hoos ayuu eegay. waa inay waddo kale jirtaa. aniga waxaan ahay nin sixiroolaa, waan ogahay waddo kale inaysan noo bannaanayn. waa inay dhibataa si aan awooddeeda anigu u helo. Rin markaasi hoos ayuu eegay, isagoo bilaabay inuu fakaro. awood badan ayay muujisay markii ka badbaadinaysay godka. ma taas ayay ahayd awooddeeda? mar kale ayuu kaana eegay. waxaa laga yaabaa awooddeeda badan inay markaasi ka keentay calaamadda gacanteeda ku taala. waxaa laga yaabaa hadda inay tahay haweeneyda adduunka ugu awooda badan, cidnana arrintaasi ma ka warqabto.